Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhowaada daawadayaasha sharafta leh. Waa mar kale isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkeena waxaan ku soo gudbin doonaa daawade dood dhex martay Nebi Ibraahim iyo Namruud. Maxay ku saabsaneed dooddu? Kuma ayaa qaldanaa? Ugu dambayntiina yaa guulaystay? Su'aalaha iyo kuwa kalaba waxaan ugu jawaabi doonaa daawade muuqaalka dhexdiisa. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Fiidiyogana like saar, asxaabtaadana u sheer gareey. Namruud waxaa lagu sheegaa nasabkiisa inuu ahaa Namruud ibnu Kancaan, ibnu Kawsh, ibnu Saam, ibnu Nuux calayhi salaam. Namruud wuxuu ahaa boqor ka mida boqorradii u waaweynaa ee adduunka soo mara. Waxaa laga wariyaa Mujaahid, mufasirkii weynaa, inuu yidhi 4 qof ayaa adduunyada mulkisay. 2 waxay ahaayeen muslimiin, 2na waxay ahaayeen gaalo. 2da muslimiinta waxay kala ahaayeen Dulqarnayn iyo Nebi Sulaymaan calayhi salaam. 2da gaaladana waxay kala ahaayeen Namruud iyo Bukhtansar. Namruud wuxuu waqtigiisa xukumayay adduunka oo dhan, waxaana la sheegaa in uu dadka xukumayay 400 oo sano. Namruud wuxuu ahaa nin kibray oo madax adag, islana weynaa. Ugu dambayntiina wuxuu sheegtay inuu yahay Ilaah, wuxuuna dadka ku qasbi jiray inay caabudaan. Maalin maalmaha ka mida ayuu Namruud wuxuu dadka ku qasbayay in ay u sujuudaan. Qofkii diidana wuu dilayay. Dadkana waxaa ku dhex jiray Nebi Ibraahim calayhi salaam. Markuu soo gaaray Nebi Ibraahim, wuxuu yidhi Namruud, ii sujuudo oo i caabud. Wuxuu yidhi Ibraahim calayhi salaam, anigu waxaan caabudaa Allah, kaas oo wax nooleeya waxna dila. Namruud wuxuu yidhi si jees ku jirta, amba wax waa nooleeyaa waxna waa dilaa, oo waxaan ahay Ilaah. Waxaana la sheegaa inuu keenay goobtii 2 qof oo ku xukumay dil toogasho ah. Midna wuu dilay, midna wuu cafiyey. Wuxuuna dadka moodsiiyey Namruud inuu wax dilo waxna nooleeyo. Markay dooddu halkaa maraysay, wuxuu isku dayey Nebi Ibraahim calayhi salaam inuu keeno xujo adag oo burisa wuxuu sheeganaya Namruud. Wuxuu yidhi Nebi Ibraahim calayhi salaam, haddii aad tahay Ilaah, wax kastana aad awooddo, bal waa kaas Ilaahay. Qorraxda wuxuu ka keenaa bari, adiga waxaad ka keentaa galbeed. Haddii aad awooddo, waa adiga sheeganaya in aad wax disho waxna noolayso. Markaas ayuu hal mar shib yidhi Namruud, oo wuxuu waayey wax uu yidhaahdo. Nebi Ibraahimna wuxuu caddeeyey jahligiisa iyo doqonnimadiisa. Halkaasna waxaa ku dhammaatay dooddii ugu weynayd abid oo u dhexaysay Nebi Ibraahim iyo gaalkii Namruud. Wuxuuna Ilaahay ku xusay dooddaasi Suuratulbaqara aayadda 258. Allaahu aclam. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ
قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين